maqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa 15 bishii shanaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxa kamid ah socdaalka Roble oo muujiyay heerka uu gaaray khilaafka Farmaajo iyo Djibouti maxay tahay sababta Farmaajo uusan kaga qayb galin caleemasaarka Ismaaciil Cumar Geelle isla markaana uu dhawaan u tagay caleemasaarkii Musafani sidoo kale Djibouti waxay ku casuumeen caleemasaarka Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dowladda Kenya waxay fasaxday duulimaadyo Hargeysa tagaya kadib go'aankii ay ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya haddaba maxay tahay istiraatiijiyadda siyaasadeed oo Kenya la ciyaarayso dowladda Soomaaliya maxay tahay ujeedka Kenya ay ka leedahay in marba ka dambaysa ay sii kululeyso xiisadda kala dhaxaysa Soomaaliya ururka shabaab baaq la yaab leh ay u direen dhalinyarada jihaadoonka ah ee ku nool caalamka dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab cad ka bixisay eedeen kaga timid maamulka Hirshabelle iyo wararkii ugu dambeeyay gantala laga soo tuuray dalka Syria oo ku dhacay Israa'iil haddii aad nagu cusub tahay saaxiib ku soo biiro channelkan subscribe saar gambaleelka taabo si aad u rukumato wararka joogtada ah ee channelkan aan ku soo gudbino tan warkii oo fidsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada Djibouti halkaas ay ku soo dhaweeyeen dhigiisa Djibouti Maxamed Cabduqaadir Kaamil wasiiro iyo mas'uuliyiin kale haddaba safarka Roble ee Djibouti waxa uu banaanka soo dhigay heerka uu gaaray khilaafka Farmaajo iyo Djibouti ka dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble ayaa ka qayb galaya caleemasaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo dhawr markii shanaad loo doortay inuu 5 sano kala hogaamiyo Djibouti safarka Roble ayaa yimid kadib markii Farmaajo uu ka baaqsaday caleemasaarka Ismaaciil ma cadda in Farmaajo uu diiday ka qaybgalka iyo inaan lagu casuumin hayeeshee ka qaybgalka Roble ee caleemasaarka ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka ka dhex oogan Farmaajo iyo dowladda Djibouti khilaafkan ayaa soo bilowday sanadkii 2018 markaasoo Farmaajo xulufo siyaasadeed uu la sameystay Eritrea oo haysata dhul ay Djibouti leedahay taasoo ay si weyn kaga caroodeen shacabka iyo dowladda Djibouti iyagoo sheegay in madaxweyne Soomaaliyeed uu la saftay dal haysta dhul Soomaaliyeed waxaa khilaafka sii laba kacleeyay xoogeystay markii dowladda federaalka ay ku eedeysay guddigii ay Djibouti hogaaminaysay eegad ay u dirtay xadka Soomaaliya iyo Kenya inay la safteen Kenya taasoo Djibouti ay beenisay kadib dowladda federaalka ayaa soo saareysay qoraallo iyo hadallo ay jeedinayaan mas'uuliyiin oo lagu weerarayo Djibouti iyadoo lagu eedeynayo inay fargelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya Djibouti ma aysan bixin jawaab aan ahayn in eedeymahaasi ay iska fogeyso mana jirin wax dhaliil ah ama cambaareen ah oo ay u jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya ka baaqashada Farmaajo caleemasaarka Geelle xilli dhawaan uu ka soo laabtay midkii Yoweri Museveni ee Uganda ayaa muujinaysa in xiriirka Farmaajo iyo Djibouti uu meel xun gaaray iyo inaysan la qabin madaxda kale ee dowladda federaalka Farmaajo ayaa marar badan lagu eedeeyay in dagaalka siyaasadeed ee Kenya iyo Djibouti uu adeegsado dana siyaasadeed oo gudaha ah inkastoo dagaalka Kenya aan qaylo badan ka iman balse midka Djibouti ay aad u diideen shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayana waxay gaareen Djibouti waxa halkaasi ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Djibouti Mudane Cabduqaadir Kaamil Maxamed iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Djibouti Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti oo helinayaan wasiir ka tirsan xukuumadaha Soomaaliland iyo Djibouti ayaa waqti kooban waxay ku qaateen qolka ay madaxdu ku nasatay madaarka kadibna madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa loo galbiyay qasriga ay ku sugan yihiin hogaamiyaasha ka socda dunida kuwaas oo xilligan ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha Djibouti Biixi ayaa kamid ah madaxda kala duwan ee lagu casuumay ka qaybgalka caleemasaarka iyadoo madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka baaqsaday inuu ka qayb galo caleemasaarkaasi dhanka kale dowladda Kenya waxay fasaxday duulimaadyo Hargeysa tagaya kadib go'aankii ay ku joojisay duulimaadyada Soomaaliya dowladda Kenya ayaa u fasaxday 2 diyaaradood in dalkeeda ay ka baxaan oo qalab elektroonig ah ay geeyaan Soomaaliland inkastoo ay mamnuucday duulimaadyada dalkeeda ka aadaya iyo kuwa uga imaanaya Soomaaliya diyaaradahan oo lagu fasaxay amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in 2 diyaaradood ay maamusho shirkadda Astral Aviation oo loo ogolaan doono inay qalab ka qaadaan garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi iyagoo sii maraya Djibouti kadib nageynaya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa 2 diyaaradood ayaa noocoodu waxa uu yahay McDonnell Douglas iyo Boeing B727 kana diiwaan gashan Kenya waxaana loo fasaxay
in alaabta ay qaadaan inta u dhaxaysa 13 ilaa 15 loona kordhin karo waqtiga haddii aysan muddadaasi u duulin. tallaabada ay qaaday Kenya ayaa la filayaa inay si weyn kaga carooto dowladda federaalka, inkastoo labada diyaaradood ay u sheegtay inay ka fogaadaan hawada Soomaaliya. si kastaba ma cadda hab ay diyaaradahaasi uga baxsan karaan hawada Soomaaliya, maadaama halkii ay soo maraanba ay ugu dambeyn soo galayaan hawada Soomaaliya si ay kaga degaan Hargeysa. Kenya ayaa toddobaadkii tagay joojisay dhammaan duulimaadada Soomaaliya marka laga reebo kuwa caafimaad iyo gargaar bini'aadanimo, iyadoo la rumaysan yahay inay kaga jawaabayso qaadka Kenya oo Soomaaliya ay iska diiday. dhanka kale, ururka shabaab ayaa baahiyey muuqaal ay hoggaanka ururkaasi ugu baaqayaan dhalinyarada ajnabiga ah ee jihadoonka inay u soo hajiraan Soomaaliya si ay kaga qayb galaan jihaadka ka socda. waa siday shabaabku sheeganayaan. muuqaalka shabaab ayaa saro loogu qaaday looguna ammaanay ajaaniibtii horay ka garab dagaalamay ururka ee ka yimid dalal badan oo caalamka gaar ahaan Yurub, waxaana muuqaalku ku baxay 4 luqadood oo kala ah Soomaali, Carabi, English iyo Swahili. inkastoo aan loogeyn xilliga muuqaalka la duubay iyo goobta lagu duubay, waxaa haddana ka muuqda dagaalyahan ajnabi ah oo tababar ay u soo xirayaan amiir ku-xigeenka shabaab Mahad Karate iyo hogaamiyaha shabaab ee Kenya Ahmed Imam. dhalinyarada tababarka loo soo xirayay ayaa ka yimid Kenya. muuqaalka shabaab ayaa ujeedkiisu ahaa olole lagu doonayo in lagu soo jiito dhalinyaro cusub oo dibadda ugu soo biirta kooxda, waxaana Mahad Karatay iyo Ahmed Imaan ay ugu baaqeen dhalinyarada caalamka ee muslimiinta ah inay ku soo biiraan jihaadka ka socda Soomaaliya. waxaa sidoo kale ololahani qayb ka ahaa baaqiyo ay dirayaan dhalinyaro ajnabi ah oo qaarkood ay geeriyoodeen iyo qaar nool oo dhalinyarada kale caalamka ugu baaqaya kuna dhiirigelinaya in Soomaaliya ay yimaadaan, iyagoo sheegaya in nolol fiican ay ku haystaan gudaha Soomaaliya. ajaaniibta ugu badan ee shabaab ka barbar dagaalama xilligan waa muhaajiriinta Kenya ka soo jeeda. dadka falanqeeya amniga ayaa rumaysan in habka xun ee dowladda Kenya iyo ciidankeeda ay ula dhaqmaan dhalinyarada muslimiinta ah ee dalkaasi oo lagu hayo beegsi ay ka mid yihiin dilal ka baxsan sharciga inay horseeday in dhalinyarada ay ku biiraan argagixisada. dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay eedeyn kaga timid Hirshabelle. wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeyn kaga timid maamulka Hirshabelle oo ay ku sheegeen inay xayirtay lacag loogu talagalay in wax loogu qabto fatahaadaha webiga Shabeelle. war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga fatahaadaha Hirshabelle ayaa lagu eedeeyay wasaaradda maaliyadda inay hor istaag ku samaysay lacag laga fasaxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Janaayo 2021. war ka soo baxay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay sidan: wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya markay aragtay war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga maamulka Hirshabelle ee maareynta masiibooyinka, waxay caddaynaysaa siday u socdaan howlaha ka hortagga fatahaadaha ee mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka SCRB ay ka wado dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa la yiri mashruuca waxa uu bilaabay qiimeynta baahida ka hortagga fatahaadaha webiyada Shabeelle iyo Jubba 27 Maarso ee sanadkan. qorsheynta howlaha waxaa si wada jir u fuliyay mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa la sahmiyey 71 goobood oo laga fulinayo ka hortagga fatahaadaha. waxaa la diyaariyey nashqadeynta loo raacayo biyo xirista 5 Abriil 2021. waxaa la furay tartanka fulinta howlaha ka hortagga fatahaadaha. waxaa soo tartamay 44 qandaraaslayaal oo maamulka Hirshabelle uu soo xulay, 19 jowhar laga soo xulay iyo 25 beledweyne laga soo xulay. midda lixaad, 2 shirkadood ayaa hadda howlo biyo xirida ka wada 7 goobood oo gobolka Hiiraan. midda toddobaad, waxaa diyaar ah 10 qandaraaslayaal oo howlgeli doona isbuuca soo socda. 6 shirkadood oo ka howlgeli doona beledweyne iyo 4 ka howlgeli doona jowhar iyo nawaaxigeeda. wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay dhibaatada fatahaadaha la qaybsanaysaa dowlad goboleedka iyo shacabka Hirshabelle. waxaan dadaal ugu jirnaa dardargelinta howlaha mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka SCRB uga qorshaysan degmooyinka Hirshabelle. waxaan caddeynaynaa in wasaaradda maaliyadda aanay jirin wax dhaqaale ah oo ay ka xayirtay dowlad goboleedka Hirshabelle, ayna sida ku cad qorshaha mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka ay howlaha u socdaan sidii loogu talagalay. ugu dambeynna, ciidamada difaaca maamulka Yahuudda ayaa shaaciyay in madaafiic laga soo tuuray gudaha dalka Syria ay ku soo dhaceen qaybo ka mid ah Israel. qoraal ka soo baxay ciidamada difaaca Yahuudda ayaa lagu sheegay in 3 madfac oo laga soo tuuray dalka Syria 2 ka mid ay ku dhaceen dhulka ay maamusho Israel, halka midka saddexaadna ay sheegeen inuu ku dhacay gudaha Syria.
Israa'iil ayaa sheegtay in madaafiicdan ay ku dhaceen dhul bannaan ayna geysan wax khasaare ah mana jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan madaafiicda loo adeegsaday ee lagu qaaday maamulka Yuhuudda ayaa hore u shaaciyay in madaafiic laga soo tuuray gudaha dalka Lubnaan ay shalay ku soo dhaceen gudaha Israa'iil mana jiro ilaa hadda koox si rasmi ah u sheegtay madaafiicdaasi inay iyagu tuureen weerarada madaafiicda loo adeegsaday ayaa imanaya xilli rabshado u dhexeeya shacabka Falastiin iyo ciidamada Yuhuudda waxaana ciidamada Israa'iil maalmihii la soo dhaafay ay dileen dad ka badan 100 qof oo shacab ah guudana saaxiibayaal waa naginta hadiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share gareeyo la wadaag saaxiibada kuma hadsanidina daawto warkan mid ka xigantan ku kulmi doono nabadgelyo